su'aasha 23aad ninkii soomanaa xaaskiisii ma la ciyaari karaa mase markaa dhunkan karaa? jawaabtu waxay tahay hadduu ishananayo oo aanu isaga baqayn inuu ku dhaco ama aanu isaga baqayn in markaa waxa weeye biyuhu ay ka soo baxaan oo ishananayo aanu isaga baqayn dhibi kuma sugna. nebiguna sala allahu alayh wasalam waxaa ka soo aroortay axaadiistiisa inuu waxa weeye xaasaskiisa inuu baashiri jiray ama la ciyaari jiray isagoo markaa sooman, ama inuu dhunkan jiray xaasaskiisa isagoo sooman. waxay caaisha tidhi radia allahu canha wa ardaaha kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yuqabbilu wa huwa saa'im wa yubaashiru wa huwa saa'im walakinahu amlakukum liirbihi. bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiska. ama walaakin kaana amlakakum liirbihi, wuxuu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam mid markaa dhunkada ayuu ahaa bay caaisha tidhi radia allahu canha wa ardaaha, isaga oo sooman ayuu xaasaskiisa dhunkan jiray. waxaanuu mubaasharo samayn jiray oo baashiri jiray isagoo sooman. waxay laakiin ka daba keentay waxay ahayd mid markaa waxa weeye xaajadiisa ama dantiisa ama xubintiisa mid uu hanasho badan buu ahaa, oo bimacnaa ishananaya, isagama baqayn in waxa weeye uu ku dhaco ama in biyo ka yimaadaan iyo wax la mida isagama baqayn. marka sidaas aawadeed ciddii aan isaga baqayn ee ishananaysa oo inay markaa xaaraan ku dhacdana aan naftiisa uga baqayn, inay biyo ka soo baxaan oo dhunkashadu ay keensatana aanu uga baqayn, dhibi kuma sugna marka waxa weeye inuu mubaasharo sameeyo ama xaaskiisa dhunkado, wax dhibi kuma sugna. inuu haweenaydiisa dhunkado ama inuu markaa waxaweye la ciyaaro wax dhibi kuma sugna. ha yeeshee waxa weeye hadduu ruuxu markaa uu yahay dhallinyaro uu yahay inuu ka fogaadaa fiican, oo nooc markaa karaaha ku jiri karta. xadiisna waa la soo wariyey min xadiis ibni cabbaas oo tilmaamaya oday hadduu yahay in markaa loo saamaxayo loo oggolaanayo, dhallinyaro hadduu yahayna inaan loo oggolaanayn. sababtuna waxay tahay dhallinyarada markaa shahwadoodii iyo quwadoodii baa badan, waa xoog badan yihiin, marka waxaa looga baqayaa inuu markaa ku dhaco ayaa looga baqaya. min qowli ibni cabbaas isagoo waa la soo wariyey, isagoo xadiis marfuucana waa la soo wariyey. ahlucilmiga qaarkood waxay quweeyeen isagoo marfuuca, oo sida albaani oo kale wuxuu quweynayaa xadiisku isagoo marfuuc yahay oo hadalkii nebiga uu yahay calayhi salaatu wasalaam ayuu quweynaya. ha yeeshee a'immada qaarkood waxay arjaxeen waqfiga inuu mawquuf yahay ayay markaa arjaxeen. marka calaa kulli xaal taas waxaa looga jeedaan wasadu daraa'ic. marka waxaa laga qaadanayaa hadduu marka waxaweye dhallinyaro yahay inay marka waxay noqonayso nooc karaahi inay soo gelayso ayay noqonaysaa, laakiin markaa xaaraan ma noqonayso hadduu isleeyahay, yacni hadduu markaa ishananayo xaaraan ma noqonayso. hadduu ishananayo oo naftiisa uu hananayo xaaraan kama noqonayso inuu markaa sameeyaa, waa u bannaanaanaysaa ayay markaa waa u bannaanaanaysa. laakiin haddii aanu markaa naftiisa inuu hananayo aanu isu filayn ama uu isaga baqi karo inuu ku dhaco, xaaladda noocaasa waxay noqonaysaa xaaraan bay ka noqonaysaa saddan lidariica, waddada mafsada keenaysa awdis la awdayo daraaddeed bay mamnuuc uga noqonaysa. wallahu aclam.